سلام كديب aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay shirkan maanta ka furmaya oo ay nasiibka u yeelatay maamulka dowladda Puntland ahna shir sanadle ah oo waxa weeye wareega oo marba lagu qabanayay maamul amba magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka Soomaaliya oo ay tiribka nasiib u yeelatay magaalada caasimadda dowladda Puntland ee Garowe marka labaad aad iyo aad baan waxaan idinku soo dhaweynaynaa martimatidin laakiin marka loo eego dee waad soo yar diga rogateen marka aad baan idinku soo dhaweynaynaa Puntland gaar ahaan caasimadda Garowe soo dhawaadaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada marka xiga shirkeena maanta halkan ka furmaya ujeedooyinkiisa ugu muhiimsani oo shirka shanaada ujeedooyinkiisa ugu muhiimsani waxa weeye si xoojinta iskaashiga golayaasha khibrad isweydaarsiga iyaduna in wixii la isdheeryahay waxa weeye xoojintu iskaashigu dee waa cooperationkii haddaynaan xoojin lahayn ama aynaan dee waxaynaga dhaxaynin waxa weeye waa dalkoo dhan baa saa u kala go-ayade ilaa dalka xeerjidintiisi baynu nahay dadka iyo xukuumadaha innagaa u dhaxayna sababtoo maaqan maamahaas aynu isla fahmayne sababtoo waxay ku maamaadaa awrka iyo ninka hoggaankaa u dhaxaya hoggaanku ku hoggaaminaya marka inagu hoggaankaasaynu nahay kulminaya shacabka iyo xukuumadaha fulinta marka maadaama aynu nahay waa inaanu inagu xidhiir leenahay oo iskaashi buuxa oo muhiima leenahay wixii khibradoo aanu isdhaannana waa inaynu isweydaarsanaa oo isu gudbinaa saynu kala faa'iidaysano ciido wax bay haysaa waxa weeye qorshaynta barnaamijyada tayo kordhinta qorshaynta barnaamijyada tayo kordhinta hay'adaha xeerdejinta baa iyaduna meesha laga maarmaan ah marka waxa weeye waa ujeedooyinka ugu muhiimsan oo shirka insha Allah dee isagoo faahfaahsan baynu geli doonaa waxaana insha Allah waan rajaynaynaa inaynu shirkii afraad helo hadal badan uma istaagin mar labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dawladda Jubbaland Puntland oo aan martida u nahay shalay lagu soo dhaweeyay airportka sida wanaagsan gudoomiyaha golaha wakiilada iyo xildhibaanadiisii iyo maxay ahayd odayaasha iyo dadka sharafta badan shalay soo dhaweeyay iyo dib-u-dejinta naloo sameeyay iyo hoolka quruxda badan ee hadda naloo dhigay gogosha intaba iyadana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin runtii waa wax weyn oo ku deesho mudan waaye insha Allah iyagana mar labaad ugu mahad celinaya mid kale insha Allah waa sida uu gudoomiyaha u sheegay shirkan waa shirkii shanaad waxaan u maleynayaa wuxuu bilowday 2006 bishii Janaayo inay ahayd baan filayaa mar kale oo labaad wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Kampala markii xigtay wuxuu ka dhacay Muqdisho ay ahayd tii afraad ani ma joogin South Africa jiray laakiin ayagana wuxuu ka dhacay Baydhabo insha Allah intaas soo socday maanta waxaa nasiib u yeelatay dawlad goboleedka Puntland oo aan maanta dhex joogno insha Allah taala waa sidoo gudoomiyaha uu sheegay hoggaan baanu nahay wakiilaan nahay waxaan u dhaxaynaa xukuumadaha iyo shacabka marka waa laga maarmaan annaga horta inaan isbaranno baahiyaheena ogaano insha Allah dawladda federaalka ah oo aan xubnaha ka nahay iyada wadanka matasha wixii kabid u baahan oo ay u baahan yihiin maamulada ayada laga rabaa runtii baahi badan baa jirta oo ay u baahan yihiin baarlamaanada xubnaha ka dawladda federaalka aqoon kororsi haday tahay sharciyada la sameeyay haday tahay wax badan insha Allah aan ka wada hadli doonaa jiri doona marka insha Allah taala aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahad celinaynaa Puntland iyo baarlamaankeeda iyo dawladeeda iyo shacabkeedaba insha Allah annagana insha Allah waxaan rajaynaynaa horumarka ay gaareen inaan gaarno magaalada Muqdisho aanu ku bilownay
ilaa ayaan isla soo gaarnay in fadhigii afraad in lagu yeeshay magaalada Baydhabo maantana kii shanaad inkastoo waqtigii loogu talagalayna duruufo jira awgeed oo dib uga soo dhacay horta mahadayno inaan isugu imaano kulankaas Ilaahayna uu noo fududeeyo annagoo joogna meel ka mid ah cariga Soomaaliya anigu ma ku celcelinayo erayga ah martida aan u nahay marti mihi Puntland waxa weeye waa Jowhar iyo Kismaayo meel walba aan taga Muqdisho meel walba waa wadankayga waa xaqaan u leeyahay si xorriyadan aan u mari karaa marka xoogaa erayga marti baan nahay hal iska dhaafo waxa weeye waa qofka xataa xafiiska aad joogto xafiiska adiga aad fadhido markaad aad ku shaqeynayso gudoomiye ku xigeenka Ismaaciil Raalaha waa gudoomiye waa ku ilaaway gudoomiye Cabdixakiin oo kale markuu xafiiskiisa uu ka kaco gudoomiye Ismaaciil xafiiskiisa gaalo ma dhahay marti baan ku ahay waa meeshii ka shaqeynaya marka waa marti ma nihin runtii kulamadan saan u sheegay intii la soo qabtay waxyaabo badan oo waxa jiray oo laga shaqeeyay kulankan maanta waxaan kullee wuxuu fursad noo siinayaa sanadkii la soo dhaafay waxa jiray kulankii ugu dambeeyay ee afraad in waxyaabo qodobo aan ku heshiinay warmurtiyad laga soo saaray marka inaan dib u qiimeyn lagu sameeyo waxyaabihii qabsoomay wixii aan qabsoomin sidii hore looga socon lahaa runtii taasi miday muhiimada noo leedahay muhiimada labaad ee leedahayna waxa waa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka gudihiisa dibadiisa markay arkaan maamuladii kala duwanaa waddanka ka jiray iyo dawladda dhexe hoggaankoodii oo mar walba midaysan oo meel isugu yimaado waxa weeye waa wax la soo sheego la kala tala qaato waxa weeye xitaa bal go'aanadii soo baxay qaarkood waxna fulaan waxna aysan fulin laakiin isu imaatinkaas aan isu imaanin ayaa wuxuu yahay mid muhiimad gaar ah shacabka Soomaaliyeed u muujinayo been la suma sheega shacabku aad ogtihiin qaarkood dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe iyo waxa weeye waa afkaar kala duwan aan qabnaa waddan kala qoqoban la iska warhaynin oo aan la wada socono siyaasad midaysan ay jirin marka hadda isu imaatinkeena wuxuu yahay message muujinayo wali macnaha way ummad wada socoto waxa way taladoodu meelna ay ka bilaabato meelna ay ku dhamaato insha Allah marka waa ku mahadsantihiin marka labaad shirkan waa shirkii shanaad anu runtii waxaan ka qayb galay shirkii afraad maadaama Hirshabeelle ay muxuu ahaay markaas u yareed Baydhabo ayaa lagu qabtay go'aano ayaa ka soo baxay runtii aad muhiim u ahaa go'aanadaas intaan xasuusto waxa kamid ah in iskaashadaan dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe golaha shacabka waxa inaga maqnaay muxuu ahaa aqalka sare ee aan shirka ka soo qayb galin waxyaabihii lagu heshiiyay waxa kamid ahaa inay muxuu iska kaashadaan xagga sharciyada golaha shacabka markii soo gaara muxuu ahaa sharci ama hindis sharciyeed uu soo gaara in markaas koobi loo soo gudbiya dawlad goboleedyada inay gudiyada iskaashadaan ee isku beegan in muxuu ahaay dhinac walba la iska kaashado in muxuu ahaay workshoopyada ama tababarada yani maadaama dawladda dhexe ay wakiil ka tahay muxuu ahaay dawlad goboleedyada in muxuu ahaay iyaguna ay xagga iska kaashadaan oo lagu daro yani wax badan ayaa kamid ahaa in muxuu ahaa shirkaas oo iskaashi ah runtii wax badan hadda kama suuro gelina waa yani waxaa soo baxay muxuu ahaay mashquulaad fara badan iyo iskhilaafyo kale fara badan oo runtii aad dareemi kartiin sidoo kale waxaa kamid ah in dib u heshiisiinta oo dawlad goboleedyada runtii ay iska kaashadaan iyo muxuu ahaay iyaga laftooda wada shaqayntooda isku xirnaadaan kamid ahaa hadda waxaad arkaysaan halkan inay ka maqan tahay galmudug khilaaf u dhaxeeya ayaga gudahooda darteed taas oo muhiim tahay inay muxuu ahaay golaha shacabka dawladda federaalka iyo golayaasha dawlad goboleedyada inay muxuu ahaay arintaas xal u raadiyaan waxyaabihii loo aasaasay kamid ahayd arintaas in runtii yani ay dhicin in dawlad goboleed ay maqnaato dawlad goboleed kale isku yimaadaan iskaashiga ayaa waxa kamid ah in dhibaatooyinka yani la iska kaashaday muxuu ahaay kamid ahayd arintaas kulaba waxa loo hadli doonaa munashirka dambe ayaa loo hadli doonaa insha Allah taala waxa kale oo meesha ka maqan oo inay soo qayb galaan ay ahayd muxuu ahaay aqalka sare iyaga runtii iyagana way maqan yihiin intaas waxaan isleeyahay xal ayaa loo heli doonaa iyagana sidoo kale mar labaad iyo mar saddexaad reer Puntland aad u mahadsantihiin waxaan isleeyahay Puntland waa wixiisna mararka labaad oo qaban doontaan insha Allah taala shirka waa iska furitaan xaaladda uu dalkeenu ku sugan yahay ama go'aanada systemka dawladeed ee qaadanay ee federaalka waxa uu waajib ka dhigayaa in lala yimaado wada shaqayn heer federaal iyo heer dawlad goboleed ka dhaxaysa
iyo sidoo kale wada shaqayn dhab ah oo dhex marta dowlad goboleedyada dhexdooda waa arrin dastuuri ah weeye inay dowlad goboleedyaduna dhexdooda ay wada shaqayn ka yeeshaan gaar ahaan kuwa dariska ah dowladda federaalka ah iyo xubnaha ka midka ahna inay wada shaqayn dhaba yeeshaan heer fulineed iyo heer sharci dejineedba iyo heer garsoor waxaan la soconnaa inay jirto wada shaqayn dhow oo hay-adaha garsoorka ka dhexeeya oo ay dalka ku yeeshaan waxaan u malaynayaa kulankoodii ugu dambeeyey hirshabeelle ayay ku lahaayeen hay-adaha fulinta ah wada shaqayntoodu waa mid lafdhabar u ah jiritaanka dowladnimada qarannimada iyo sistamka federaalka ee Soomaaliyeed hay-adaha xeerdejinta maadaama dalkeenu uu qaatay sistem federaal ah iyo sistem dimuqraadiyadeed oo shacabku inay yeeshaan matalaad inay yeeshaan waxaana laga doonayaa inaanu la nimaadno hadba hal abuur xoojinaya isla socodka iska warqabka iskaashiga iyo isxogwaraysiga hay-adaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed barnaamijkan runtii marxalado badan ayuu soo maray oo aad iyo aad u adag waxyaabo badan waa isaga tilmaami doonaa caqabado badan waa uu la soo kulmay kulankayagii afaraad ee uu martigeliyey gudoomiyaha golaha waxa weeye xeer dejinta ee koonfur galbeed inuu dhaco waa laga hor yimid caqabad aad iyo aad u adag baa ka hor timid hay-adaha fulineed baana ka hor yimid ama heer federaal ha ahaato ama heer dowlad goboleed ha ahaato laakiinse hay-adaha xeer dejintu waa ka adkaysteen shirkoodiina waa qabsadeen ma aha wax fudud in ay baarlamaanadu iskaashi yeeshaan oo isxogwaraysi yeeshaan oo ay shuruucda la samaynayo dalka ay la socdaan oo ay waxa weeye dib u eegista dastuurka ay iskala socdaan oo ay dalka meesha loo wado ay isla ogaadaan arrin fudud ma aha xildhibaan arrin in lagu adkaysto u baahan weeye arrin yacni in oo madax bannaanida matalaadda shacabku inay muuqato weeyaan caqabadaana ka hor imanaya waana ka hor yimaadeen waxaan hadda aad iyo aad ugu faraxsannahay inuu kulankii shanaad noo qabsoomo oo uu noogu qabsoomo caasimadda dowladda puntland ee soomaaliya ee garoowe baarlamaan cusub oo la soo doortay oo waxa weeye golaha wakiilada ee puntland ah hoggaankiisa iyo xubno fara badan oo cusub oo dhalinyaro u badan oo soo galay golahaas inay xildhibaanada kale isbartaan in isdhexgalku uu noqdo mid adag in la iska faa'iidaysto oo hadba wixii la isdheeryahay la isaga faa'iidaysto xildhibaanada ku cusub golaha wakiilada puntland waxaan u sheegaynaa baarlamaanka ugu horeeyey ee ugu hor dhismay baarlamaanada ka jira waxa weeye Soomaaliya halkan fadhiya waa puntland mas'uuliyad gaar ah ayaa ka saaran Soomaalinimo iyo federaalnimada in ay garab siiso oo ay gacan siiso golayaasha ugubka ah ee gadaalka dhismay golaha shacabkana waxa weeye waajib baa saaran in uu la kaashado golayaasha wakiilada ee dowlad goboleedyada sidii loo gaari lahaa shacabka sidii loo hubin lahaa shuruucda dalka loo dejinayo inay noqdaan mid wakiilada oo dhami ay tala ka soo wada bixiyeen xubnaha halkan fadhiyo hadda guddiga joogtada ee golaha shacabka ka mid ah shuruuc bay gacanta ku hayaan sharcigaasi ansixinayaan waxa uu saameyn toos ku yeelanayaa xubnaha aad idinku matashaan marka waxa waajib ah inaad talo ku yeelataan marka la dejinayo oo aad xoggaal u ahaataan arrinta dib u eegista dastuurka waxa weeye arrin waajib annaguna naga saaran yahay haddaan nahay heer federaal heer dowlad goboleedna waajib dhaba ka saaran yahay waxaanu ku adkaysannaa in chapterkii dib u eegis lagu samaynayaba
in golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada lagu hormarsiiyo oo ay iyagu marka hore taladooda ku soo bixiyaan. hadda fadhiyadii ugu dambeeyay oo goluhu yeeshay waxaa ka mid ahaa soo bandhigidda waxa weeye hordhaca ah ee dastuurka dib u eegistiisa. waxa weeye golaha shacabku wuxuu runtii aad iyo aad u xoojiyaa wada shaqaynta uu la leeyahay golayaasha wakiilada. shaqadana culayskeedu hadda ka bacdi bay imanaysaa. saaxiibayaal mudanayaal waxa weeye dib u eegista dastuurku waxay noqon doontaa shaqo wax ka beddesha dooda ka socota dalka hadda. yacni ka talinta masiirka aayaha Soomaaliyeed oo dhab ah wuxuu bilaabi doonaa 2 bilood ee soo socda oo aad arki doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya la aan rabno inaynu dhisno sidee bay u ekaan doontaa inay golayaashiina dhexdiisana aanu hor keeni doonno golaha shacabka iyo aqalka sarena doodiisu ay ka bilaabi doonto. waxaanu doonaynaa arrimahaas sidaanu isaga kaashan lahayn sidaanu isku faham aanu uga wada noqon lahayn inaanu kulamadan oo kale la adkeeyo laguna adkaysto jiritaankooda iyo sii xoojintooda waa waajib na wada saaran weeye. golahan afhayeenada xubnaan ka wada nahay inaanu wada ilaashanno oo aanu isla ilaalinno oo jiritaankiisa aanu hubinno waajib ina wada saaran weeyaan. annagu qaybteeda aad baanu uga soo bixi doonaa haddii uu Ilaahay yiraahdo. golayaasha sida uu sheegayay gudoomiyaha golaha shacabka ee Hirshabeelle waxa weeye goor dambe ayaa la dhisay golahaas. inta u dhaxaysa goorta uu golaha wakiilada Puntland iyo golaha wakiilada Hirshabeelle inta u dhaxaysa waad garan karaysaa. haddaysan golayaashaas iyo hay-adaha fulintu aysan isla wada jaan qaadin systemka federaalku khatar buu gelayaa. sida loo wado system federaal ah wuxuu ku salaysan yahay cooperation iyo conflict. ama waa khilaaf ama waa isku xirnaan iyo wada shaqayn. labadaas uu mid ku salaysan yahay. waxaan jeclaan lahayn inuu keennu ku salaysnaado wada shaqayn iyo iskaashi. hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijkan hadda waa furitaan weeye.